السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب kusoo dhawaada channelkeena fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe inoo dheh beelkana furo si aad noqoto daawadaha koowaad haddaa hore noola joogtana like t-shirt waa xaggiina maanta waxaa ka hadli doonaa insha allahu tacaala sidee bay hooyada ku garan kartaa inuu ilmaheeda caano fiican ka hela naaska marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay inta ubad haysato allah u barakeeyo baariyaalna allah uga dhigo inta haysanna allah ubad degdegaa siiyo oo saalixiin ah sidee bay ku garan kartaa hooyadu waxay ku garan kartaa inuu ilmaheeda naaskeeda ka cabayo caano wanaagsan marka hore ilmaheeda wuu dhididayaa madaxa ayuu ka dhididayaa si fiican dhidid aad adiga haddaa taabato dareemi karto ama aad fiiriso aad arki karto ayaad ka dareemaysaa ilmahaada markuu cabayo ama jaqayo naaska madaxiisa ayaad dhidid ka arkaysaa marka ilmahaada wuxuu helay caano ku filan ayuu kaa helay sidoo kaleeto ilmaha waxaad ku garan kartaa inuu caano fiican ka helo naaska waxaad maqlaysaa shanqar markuu waxa cabayo kala qof biyo cabayo kala maaragta oo laqayo haddaad u dhageysato ama aad u fiirsato ilmahaada waxaas ayaad ka maqlaysaa oo qujuc ayaad ka maqlaysaa marka maasha allah caano ku filan ayuu ka helayaa markaa naaskaaga sidoo kale waxaad ku garan kartaa markuu naaska cabayo hadduusan oyneynin hadduusan naaska kasoo fuqfuqeynin ilmahaada wuxuu ka helayaa caano fiican markuu caano fiican ka helaya naaskaadana si wanaagsan ayuu u cabayaa ma oynayo maasha allah naaskiisa kama fuqayo haddaa xitaa istiraada kasoo bixi sidoo kaleeto ilmahaada waxaa ku dareemaysaa inuu naaskaada caano wanaagsan ka cabay ilmahaada waa mid dhalaalaya maasha allah aad u qurux badan aad ayuu u dhalaalayaa ilmahaada weliba ilmaha ka yar 4 bilood intuu ka yaryahay ama ilaa 6 bilood naaska si fiican ayuu ugu filan yahay ilmahaada waxaad ka dareemaysaa maasha allah dhalaal qurux badan ayaad ku arkaysaa ilmahaada maxaa yeelay naaska hooyadu waa nutrition waa nafaqo dhammaystiran dhan walba ka dhammaystiran sidoo kale waa ilmo iska faraxsan farihiisa ku cayaaraya maanta oo dhan xilliga uusan baahnayn xilliga markuu baahan yahay ilmaha wuu oonayaa waa dabiiciyan maasha allah aad ayuu wanaagsan yahay naaska in kaliya ilmaha la siiyo ilaa xitaa 4 bilood u horeyso ama ilaa 6 bilood hadaadan awoodin oo naaskaada ku filnaanaynin ilaa 4 bilood u horeyso ugu dadaal ilmahaada maasha allah aad ayuu kugu kubcayaa sidoo kale wuxuu ka difaacayaa infectionka caloosha ayuu ka difaacayaa oo ma ku dhacayo ilmahaada sidoo kale waxaana ku dhacaynin infectionka samabada ku dhaco sidoo kale hergab ilmahaada kuma dhacayo maasha allah antibody ayaa ka buuxa oo difaaca jirka ayaa ka buuxa naaska hooyada maasha allah waa waxyaabo aad u wanaagsan u tayo badan ilaahna ugu talagalay in beebigaas la siiyo caanahana hadday daruuri keento waa macquul laakiin haddaysan danta kugu kalifin ilmahaadu u daa-in naaskaada sidoo kaleeto naaska wuxuu faa-iido u yahay nuujintiisa ilmaha hooyada iyo inkamka guriga ilmaha wuxuu u yahay difaac fara badan ayuu ka helayaa sin hore usoo sheegnay sidoo kale hooyada waxay noqonaysaa hooyo aanan burneyn ma cayileysid maxaa yeelay xilliga umusha hooyadu waxay cabaysaa dareero fara badan si ilmaheedu caano uga helo naaska marka ilmahaada haddaad jaqsiinaysa naaska adigana aad dareero cabayso waxyaabo fara badan aad cabayso kuma cayileysid waayo waxaa kula qaybsanaya beebigaada laakiin haddaadan ilmahaada siinaynin naaska oo adigana dareere iyo waxyaabo fara badan aad cabto waad cayileysaa marka hooyada quruxdeedana waa u dan oo maxay haytood nuujinta ayay ka helaysaa sidoo kaleeto dhaqaalaha gurigane waa sidoo kaleeto lacagtii caanaha ayaa idin baaqanayso soo dhawaada ayaa idin leeyahay aad baa u mahadsan